organizationka magaciisa xanaano waa dad caawiya waxyaalaha maaragtay jannada ka hor istaagan oo caqabada ka hor istaagan oo inaad jiirtana laga rabo ood dhaaftid ilaahay wuxuu ku sheegay masaakiintii agoonta wax la taro. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد marka hore ilaahay subxaana wa tacaala mahad iska leh marka xigta waxaan u mahad celinayaa akhyaarta kasoo qayb gashay soo bandhigidan ay soo bandhigayso hay-adda xanaano waxqabadkeeda sida caadadanu ahayd waxaan ku bilaaban doonaa aayadaha qur-aan kariimka waxaan u yeeri doonaa maxamed muxaysini falyatafadal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أجر يا حسن هذا الله كسي محمد وحان ويري دونا وكوحيا محمود ويرو سو نوسو جيديو كلمة فريتانكا يسو دوينت محمود فليتفضل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله تعالى وحن كسون دوينيا ضمان أخيارتك الصغير بشيء ولا لها رنتي وحدوبيو علماء كالصغير بشيء أنت وحن ليا شركة ونفرينيا ونكسو دوينيا أنا أقول هلا مقعة هي أد حنانو. وما تسيح هاي محمود بلا waxaan u gudageli doonaa barnaamijkeena insha allah waxaan u yeerayaa sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun walaalkeenu kusoo dhawaad falyatafadal. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. إلهي سبحانه وتعالى وحين فريا يا أيها الذين آمنوا كوي إيمانك لغهليو إلهي كعبصدا عبسدو حق ليهي hana geeriyoonina idinkoo aan mu'miniin ahayn yacni axwaasha nololeed oo dhan ahaada kuwa rabbigood ka cabsada waana dardaaranka ilaahay subxaana wa tacaala iyo talada uu qur-aanka ku siiyey umamka dhammaantood hadday gaal tahay iyo hadday muslimtay kuwuu jecelyahay hadday tahay iyo kuwa rabbi necbyayba hadday tahay dad oo dhan baa ilaahay la hadla wuxuu leeyay yaa ayuha nnaasu taquu rabbakum إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس با إلهي ورددوا إلهي كردور صدا سبحانه وتعالى يكعب صدا مؤمن با إلهي قاروا له الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق التقاته يا رب التلمام يا سبحانه وتعالى قوى ربي وجعلي هيبو قاروا له الله وحلي نبي الله محمد يا أيها النبي اتق الله قفك مؤمن كهي وحنا لشتنو تشوقه وإنه اسكت ضيّنه ربك كعب صلى سبحانه وتعالى تسوى الشيء عام ودمان تريدين فريه شيء قلبات يعني جعلس إن كلمة كوبرنا نذكر هذا وحويان كل إنسان كفهم أي organization كان مجلس حنانو وضد عاوية مع الرور هالنقطان ومساكين هالنقطان ومضد كل هالنقطان عاوي منا وحكا قفلا نبي محمد عليه الصلاة والسلام حديث البخاري كصار ارتوح كنت المام يا رجل من بني إسرائيل رواية البخاري قار كم بدنا بغية بوكت المامسة من بني إسرائيل من بغايا بني إسرائيل قبل حن ضمر كرير بني إسرائيل كم ده أصعطها الراضي دبتنا هالراد كيو هي عيل بياه شوي كل عض ويكسو عبت مركي كسو بحضي أي حق سري وحي وقتمي أي هرادا وهراد درادد يعني دولك اللي فيه waxay tiri aygan waxa haya wixii hayay waxay isku dayday markaa inay naxariisato waxay wax ugu qaadan ma hayso ceelkii bay dib ugu noqotay dabeetana muuqa waa khufkan yar adag khuf ay sidatay yani kab saan ka samaysan oo haraga oo saan sharabaadka kala ah ayay dib ugu la dhaadhacday intay biyaha dartay ayay afka ku soo qaaday jaranjaradii bay soo kortay eygii bay waraabisay nabigu wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam ilaahay baa uga mahad celiyay fashakara allahu laha faghafara dhanbaha buu nabigu leeyahay ilaahay baa uga mahad celiyay caawimada ay geysatay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala iyana dembigeediiba ku dhaafay
yacni haddii ay oo laga yaabo xayawaanada ugu xurmada liitay inuu ka mid yahay caawinta la caawiyo hadduu ilaahay dembigii gabadhaa xun ama ninkaasi uu ku dhaafay qof muslima oo agoon ah oo baahan oo aada caawisay maxaad u malaynaysa nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxaynu ognahay ambiyadu inay safka hore ku jiraan dadka kuwa hogaaminaya yihiin jannada manaasisheeda meelo sare ay ka gelayaan haddana nebigu wuxuu tilmaamay ana wakaafil yatiimi ka haatayn buu yidhi intuu laba faroo taagay labadaas ayuu wuxuu yidhi aniga iyo agoonka kafaalo qaada waxaanu isku nahay sida labadan farood oo kale yani waa wax manaasisha sare lagu gaadho oo jannada boos wanaagsan lagaga helo in la caawiyo dadka ducafada ee masaakiinta ee agoonta ay ka mid tahay agoonta waa dadka ugu liita waa qof waaye waalidkii xanaanaynayay ciddii taageeraysay waa qof waaye qofka muslimkee naxariistaasi qalbigiisa gasho ilaahay baa wuxuu u tilmaamaya isna inuu naxariisanayo nabiyullaahi maxamedna wuxuu leeyahay alraaximuun yarxamuhum arraxmaan kuwa naxariista ilaahay baa u naxariista bale nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay fii kulli kabadin rabt beer kasta oo qoyan dadka beeraha beerta shimbirtu intay ka cunto iyo xayawaanku intay ka cunaan xataa taa ajar buu ku leeyahy fii kulli kabadin rabt buu nabigu yidhi beer kasta oo qoyan oo wax la siiyo waxbaa laga helaya kelmadaydu markaa waxaan kusoo koobayaa waqtigu iska kooban kow ilaahay ka cabsado subxaana wa tacaala meel kastoo aad joogtaanba haddii hal dhul gaalo la joogo iyo haddii dhul muslim la joogo haddii dhalinyaro la yahay iyo haddii waayee la yahay haddii culamo la yahay iyo haddii caamo la yahay dadkao dhan waxaynu leenahay waar ilaahay ka cabsado rabbigiin ha ilaabina noloshani waa yartay waanay gebagaboobaysaay qodobka labaad aan idin leeyahayna waxa weeyaan wixii ay ilaahay dartii ula baxdaan waxaa lagu gaadhaa manaasishaasi sare ee ilaahay dartii xisaabso oo ay eegin shilinkee waxaad eegtaa allaha dartii u bixinaysa subxaana wa tacaala sala allahuma calaa nabiyi moxamed wala ali wasaxbi wasalam جزاكم الله خير الجزاء walaalkan mustafa xaaji ismaaciil kelimada qiimaha badan leh uu noo soo jeediyey ilaahay miisaanka xasanaadka aqranaha ugu daro insha allah waxaan u yeeri doonaa axmed ooriye si uu noogu faahfaahiyo waxqabadkii hay-adda iyo marxaladii ay soo martay axmed faleed fadal waxaan rabaa inaan wax yar ka taabto waxqabadkii hay-adda xanaana muddada ay dhisnayd ayaan rabaa wax yar inaan ka iraahdo hay-adda xanaano waa hay-ad samafal ah oo taakulaysa agoomaha soomaaliyeed waxayna jidhay oo dhisnayd muddo 5 sana waxayna ka shaqaysaa oo ka howlgashaa waddanka Soomaaliya marka waxaan rabaa wax yar inaan ka taabto muddadii ay shaqaynaysay hay-adaas iyo wixii ay qabatay intaba intaan u gelin waxqabadkii waxaan rabaa sawir yar oo aan ka soo qaatay website-ka Amir Amir oo ka turjumaya qasaarihii ay nagu reebeen dagaaladii sokeeye iyo dhibaatadii laga dhaxlay ayaa waxaan rabaa sawirkan yarka qof kastoo arkan uu dareemaya waxa uu xambaarsan yahay iyo waxa uu ka hadlayo marka waxaan rabaa inaan wax yar akhriyo qoraalka yar oo ku qoran inta agoon oo kaleeto waa ilmo agoona oo aabbo iyo hooyadood ku waayay dagaaladii sokeeye cunuga yar oo midigta xiga wuxuu leeyahay aabba haddii uu noolaan lahaa dharka ciidda ayuu noo iibin lahaa hooyadeen hadday noolaan lahaydna way noo labisi lahayd marka runtii waa hadal aad iyo aad maaragtay qalbiga qofka ugu reebaya tiiraanyo iyo xanuun badan markii laga hadlayo dhibaatada ilmaha agoonta siday dhibaatada ugu nugul yihiin siday maaragtay ugu baahan yihiin markaas in la gacan qabto marka sawirkaas qof kasta uu dareemi karaa sharaxaad badan inaan ka bixiyo ma loo baahna waan ka gudbayaa waxaan rabaa inaan maaragtay wax ka iraado hay-adda xanaano waxqabadkeedii iyo muddada ay dhisnayd xanaano waa hay-ad samafal ah sida hore baynu kugu sheegay meelaha ay hadda ka shaqo bilowday oo shaqada tooska ay ka wada waxaa kamid ah magaalada Gaalkacyo oo ay maaragtay muddo 5 sano ay ka waday hawl samafal ah hay-adda xanaano waxaa la aasaasay 2008 waxaana lagu aasaasay dalka Norway aasaaskeeda iyo sameynteedana waxaa ka dambeeyay dhalinyaro iskaashatay oo aragtay dhibaatada iyo maxaan ku yiraahdaa burburka ay ku reebeen dagaalada sokeeye dhulkeenii
khaasatan agoomaha tirada badan oo aan helin wax daryeela iyo wax gacan qabasha. sidaas ayay maaragtay ku aas-aasantay oo maxaan ku yiraahdaa ku howlgashay. haddana waxa weeye wakiilo badan iyo mataqaanaa ayaan ku yeelana wadamo badan oo ay kamid yihiin UK, Sweden, Denmark, Finland. ujeedooyinka waxaan rabaa inaan usoo galo loo aas-aasay hay-adda Xanaano. ujeedooyinka waxaa kamid ah oo adeegidda agoonta Soomaaliyeed ee darxumada iyo daryeel la-aantu ay ku haysato dhulkii Soomaaliyeed, ururinta iyo diiwaangelinta agoonta. hadda meelaha diiwaangelinta ka sameynay waxa weeye waa magaalada Gaalkacyood. waxaan diiwaan gelinay oo aan ogaanay ilmo gaaraya 4,000 oo agoona inay ku dhaqan tahay magaaladaas. laakiin anaga awoodeennii iyo mataqaanaa way gaari weyday intaas in gacanteennii ay wada gaadho. waxaan maaragtay hadda si toos u rajiis garaynay 400 oo aan rabno sida ugu dhaqsiyaha badan inaan maaragtay gacanteena gaarsiino. laakiin hay-addu waxay kafaalo qaaday 100 agoon ah oo muddada 5 sano ilaa haatan ay caawinaysay oo ay ka caawinaysay maaragtay waxyaalaha ay u baahan yihiin oo maaragtay hadday ahaan lahayd nolol maalmeedkooda, hadday ahaan lahayd waxbarasho, hadday ahaan lahayd maaragtay wixii qutul daruuriyo oo maaragtay laga maarmaana. waxbarashada waxaa la baraa diiniga, cilmiga maadiga, waxaana wax ka bartaan iskoolo private oo ah iskoolada ugu tayada fiican magaalada. runtiina hadda waxay maraysaa waxbarashadeedu meel fiican oo wanaagsan. xilligii aan gacan qabanay oo aan caawinta u bilownay meesha ay marayeen iyo maanta wax badan ayaa u dhaxeeya. runtiina muhiimaduna waxay tahay ilmahaas inay helaan waxbarasho tayo leh oo mid diiniya iyo mid maadiyaba, si ay bari mustaqbalka naftooda iyo dalkooda iyo diintooda u anfacaan oo ay ka soo baxaan dadka waalid leh oo bulshada Soomaaliyeed waxtar u noqda oo hoggaan u noqda. ilmuhu markay yar yihiin haddii maaragtay aqoonta laga dhiso mid diiniga iyo mid maadigaba, bari waa loo baxsanaya. waxaa ka soo baxaya doctor baa ka soo baxaya, waxaa ka soo baxay nin injineera, waxaa ka soo baxaya nin sheekh oo caalim oo dadka hogaamiyo dadka wax u sheega. marka runtii aqoonta waxa aan xoogga saarnay arrimahaas ka mid ah. ilaahayna waxaan ka rajeynayaa ilaahay nagu guuleeyo oo ay noqdaan kuwii mustaqbalka mujtamaca waxtara inay noqdaan halka ka soo baxaan. hay-adda Xanaano markay aragtay baahi weyn in loo qabo in la helo dhul lagu xanaaneeyo agoonta, waxay iibisay oo isku xilqaantay dhul cabirkiisu gaarayo 140 lagu dhuftay 100 mitir oo ku yaala magaalada Gaalkacyo. waxaana u iibinay dhulkaas si agoonta ay u hesho xarun dhammaystiran oo leh jiif, goob waxbarasho, caafimaad, masaajid iyo wixii kale oo markaas muhiim ah inay helaan. guriga jiifku sidan buu ekaanayaa, waa guri 2 dabaqa oo isdul saaran. marka sidan buu ekaan doonaa haddii ilaahay idmo. waa qaybta jiifka kaliya, laakiin qaybtii ilmuhu agoonta wax ku baran lahayd weli maaragtay naqshadiisi way socotaa. waxaan ballan qaadahayaa inaan ka shaqeeyo oo aan u socdo habeen iyo maalinba agoontan hawsheeda. kuwii isku soo dubaridayna waa u ducaynaynaa. haddii ilaahay ka dhigana shirar kuwan ka waaweyn yaanu u qaban doonaa haddii alla idmo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan leenahay alxamdulilah rabbil caalamiin. hadday hay-addan Xanaano hadday maanta usoo istaagtay ay tiri caruurtii ayaan xanaanaynaynaa laga tegay oo dagaalkaas iyo burburkaas naafeeyey, horta waxaan leenahay kusoo dhawaada hambalni idin leenahay. annagana garabkiina ayaan taaganahay. waxaan leeyahay walaalahayn wax alla wixii oo garaba waa kusoo dhawaynaynaa hadalkan. meel kastoo caruuro joogto oo meel kastoo dhibaato joogtana oo hay-adaas joogtana annaga garab baan u nahay. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaan haddana u yeerayaa axmed cali wacays isagana siduu kelmad uga yiraahdo munaasabadan. aada iyo aad baan runtii waxaan leenahay ilaahay ha ku garab galo dadkii hawshaan abaabulay oo dadaalka muujiyo dhalinyarada ah. sidaynu ognahay dee agoontu Soomaaliya meel walba way joogtaa. dhibaatadaas hadda caamka oo laga hadlayayna wada qabtaa. marka kuwa nasiibka u yeeshay in la abaabulo oo hadda hawshaan ragga isku xilqaamay iyo gabdhaha isku xilqaamay ay intaas soo wadeen. waxaan leenahay walaalayaal adinkoo mahadsan dadaalkiina ilaahay ha idinku garab galo, hana ka caajisinina. waa hawl dhib badan,
qofka bini'aadanka naftu markasta waa iska dhibsataa wixii cibaado ku saabsan waxyaabaha kale naftu aad ay ugu nugushahay marka arrintan waa arrin u baahan adkaysi iyo samir intii aad soo wadeen waxaan rajaynayaa in ka badan in ilaahay intii aad dad kale uu bixiyo in kala wareega inaad sii wadaan siina ballaarisan wixii awoodiinu ay noqoto annaguna diyaar baan u nahay wixii tabara iyo wixii yani hawlo aan la qaban karno insha allah inaan la qabano maalinba mar hadba muxuu ahaayey waqtiba heerba ayay joogtay maanta waxay maraysaa runtii waqtigii ugu wanaagsanaa ee aan is oran karno yani wax lagu farxa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ama dadka ka soo shaqeeyay ay ku farxaan inay maanta ay marayso meesha ugu wanaagsanayd run ahaantii aniga shakhsi ahaan aad iyo aad aan faraxsanahay maanta maalin farxad weyn ayay tahay sababtuna waxa weeye waxaan xasuustaa markii muxuu ahaayey ugu horeysay aan bilaabaynay inay ahayd aan ka bilownay yani scratch yani eber ay ahayd annagoo 6 qof 5 qof meelahaas ka wada hadlaynay maxaa xagee ka bilowdaan maxaa samaysaan maantana walaalayaal heerkan bay maraysaa dhammaan walaalaha muxuu ahaayey shirkan ka soo qayb galana waa uga mahad celinaynaa sidaad noo garab istaagteen la'aantiin runtii ma socdeen xanaana ma socoteen xanaana waxay ku socotaa walaalaha inta halkan fadhiya iyo kuwa badan oo run ahaantii jeclaa inay yimaadaan laakiin ay u suurtageli weyday marka sidaas awgeed walaalayaal aad iyo aad baan kugu mahad celinaynaa sida wanaagsan aad noo garab istaagteen amiin iyo maalin waxaan joognaa gabagabadii waxaan insha allahu noo soo gabagabayn doonaa barnaamijkeena walaalkeen Dr. Ahmed Daahir Aways Sheekh Ahmed Fadal بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان وبدين ما بعد وحيالها مارتي جنة كهر استاغن وعقبة كهر استاغن وإناد جيرتنا لغا ربو ودافتيد إلهي وحوك الشيغي مساكين تي أغوانت وحلا ترى فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة قفك بورتي جنة كحكتي وواسراتكي مؤوسا جيرين عقبة رمحيتها كاه الرئيسة مركز إلهي عابدو حق ألقودة تتحق بن آدم كقد أدون تقفالا حري مارتي مساكينتا ضيعانو دولك اسكيالا إن لحفظيو أغونتا خاصهان مركي قرابيهين iyo maartay iyo markalaba in la xifdiyo marka